ورحمة الله وبركاته. موضوع ينال يمروين يضع الله راعي الدستور كي شروع لطلق جمهورية سوماليلاند وسارد مالية دا يهرمان تدقالو وحاي تلك وقابسان تهي وغنى مسؤول تهي شقوي واوين ويكمديهين تجين ميزانية قرنك فولينتا يهرجلينتا شرعية لوها جاي مامل كمالية دا قرنك سامينتا فولينتا سياسة مالية دقالة عشورات أو طبقة حقيقة إن فرصتها دقالها سي عدالة يسنان أهلا قبيل أورورنتا نظامينتا عشورها دخلية وطنك اسكو للتركة دخلية يخرجك دولته أنا أقول كدولة واجبات كاسي واوين كحسن دستور كأي شروع لوضعك إسلام كان جودنا أي حركة أي مسؤولية دلائي إجمالي وحن حوك صار دونا مدة عن حركة هيو هدي الله إدمو سامينتا نظام ده فرن هفن حكو أول أو سلطة جارس هدفك يولك وين وسائل دقرنك أي وجرته waxaan xoogga saari doonaa dejinta miisaaniyad dhammaystiran anigoo xoogga saaraya dheelitirka dhaqaalaha la dagaalanka faqriga iyo saboolnimada ilaalinta iyo xoojinta amniga iyo xasiloonida dalka kor qaadista iyo gaarsiinta muwaadiniinta adeegyada aasaasiga ah ee horumarinta waxbarashada caafimaadka wadooyinka iyo amniga cashuuruhu waa laf-dhabarta dhaqaalaha waddan ku horumaro kobcinta iyo dhiirigelinta iyo ilaalinta iyo habsami u soo ururinta cashuurinta waa waajib qaran oo nasaaran wadaan nahay mas'uuliyiinta iyo saraakiisha iyo shaqaalaha wasaaradda dib u habaynta maamulka maaliyadda BFM waa nidaam caalami ah oo ina gaarsiinaya hadafka aynu leenahay waxaanu ballan qaadaynaa dhammaantayo in aanu dhammaystirno hirgelinta iyo dhammaystirka fulinta nidaamka maamulka maaliyadda ee casriga ah أنا وفلنا يا بلانقات كي مدحونا جمهورية سوماليلاند وضن عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وحن سمعين دونا سياسة حراعيو هجيال يبرت المامدية لغو باكستان يو لغو لا دغالم مسوماسوقا لونسيغا مالك ددوينها iyo dayacaada iyo dhayalsiga wax istamamarinta iyadoo aan wax dulqaadaha loo yeelin doonin haba yaraatay waxa aan si xufan oo hagar la'aana ugu shaqeyn doona uguna hawlgeli doona qaranka jumhuriyadda khayraadka iyo dhaqaalaha dalka aniga oo sida ugu macquulsan u maareynaya maalkiisa muruqiisa iyo maskaxdiisa si loo hirgasho maareynta maalkiisa waxaan ballan qaadaynaa inaanu si hufan oo wanaagsan u fulino awaamirta ka iman doonta madaxda sare ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland shaqaalaha wasaaradda maaliyadda saraakiisha waxgaradka khubarada aqoonyahanka iyo dhammaan bulshada Soomaaliland gaar ahaan ganacsatada madaxda hay'adaha kala duwan ee dawladda waxaan ka codsanayaa inay isku kay garab taagaan gudashada shaqada baaxadda leh ee la eegmaday waxaan ilaahay ka baryayaa inuu guuleeyo hawsha culus ee la eegmaday waxaanu mahad celinayaa madaxda wasaaradda xilka wareejinaysa oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda Dr. Saad Ali Shire oo wasaaradda soo gaarsiiyay meel aanay dib uga noqon karin waxaan xiriir dhow la yeelan doonaa oo togan ganacsatada cashuur bixiyaasha ah iyo cid kasta oo inagala shaqeynaysa in maxaan ku rahdaa cashuurta iyo dakhligu uu kor u kaco waxaan xiriir dhow la yeelan doonaa hay'adda DP World oo dhaqaalaha dalka wax weyn ku soo kordhisay shaqo weyn naga dhaxayso waxaan xiriir dhow la yeelan doonaa hay'adaha ku shaqada leh sida World Bank ee la shaqeeya wasaaradda maaliyadda iyo kuwa ka shaqeeya mashruuca BFM
waxaan wada shaqayn dhow yeelan doonaa bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu leenahay shaqo wadaag weyn oo had iyo jeer looga baahan yahay inay wada shaqayn yeeshaan si ay qiimaha shilinkana kor ugu qaadaan dhaqaalahana uga wada shaqeeyaan halka waxaan fariin uga dirayaa cashuur qaadaha iyo cashuur bixiyaha cashuur qaadaha oo ah ka u qaabilsan wasaaradda maaliyadda inuu dakhliga loogu talagalay ee cashuur bixiyaha laga qaadayo inuu si dhab ah u xareeyo waxa waajib ku ah inuu sida tahay uu xareeyo cashuur bixiyahana waxa laga doonayaa inuu isaguna sida ay tahay uu lacagtaasi maxaa ku dhahdaa cashuurta u bixiyo cid kasta ama laba kasta oo labada dhinac ah oo isku daya inay ku shuraakoobaan inay arrintaasi ay si khaldan ay uga faa'iidaystaan sharcigu wuu qaban doonaa sharcigu ma qaban doono oo keliya inanka cashuur qaadaha ah laakiin ka cashuur bixiyaha ah ee arrintaasi kula shuraakooba isagana wuu qaban doonaa waana lana qarin maayo oo waa la sheegi doonaa dhammaan waxaan idinku codsanayaa inaan maxaan ku dhahdaa aad ila shaqaysaan shaqaalaha wasaaraddana si fiican baan uga shaqayn doonaa sidii aan usoo wada shaqaynay shaqaalahaygii baanka dhexe joogay oo ay qaar badan halkan ka joogaan halka waxaan ka xusayaa agaasimihi guud ee caymiska oo baankayga islahaa cabdiraxmaan muuse dhammaantiin waan salaamayaa waxaan ilaahay ka rajaynayaa oon ilaahay ka baryayaa inuu xilkaa culus ee naloo egmaday nagu asturo oo noo fududeeyo dhammaantiinna noogu duceeya